xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey ahna kusimaha agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka ayaa maanta si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana soo dhoweynta xildhibaan yaasiin ka qayb qaatay xildhibaanada labada gole ee baarlamanka wasiiro mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka banaadir iyo kooxaha suugaanleyda intaasi kadib ayaa waxaa xildhibaanka loo soo gulbiyey qaybta martida ee garoonka aadan cadde ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay xildhibaanadii wasiiradii iyo waxgaradkii madasha ku sugnaa aadan ugu soo dhaweynaynaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inta ka soo qayb qaadatay soo dhaweyntiisa ka soo qayb qaadatay dhammaan bulshada reer muqdisho oo dhan waxay ku leeyihiin soo dhawow aadaa loogu riyaaqay guuleysashada guuleysatay ku soo dhawow magaaladaadii aadaan kugu baahannahay waxaanu maanta waa maalin weyn noo tahay waa maalin farxadeed waa maalin aan soo dhaweynayno nin dhalinyaro oo aqoon-yahana oo noqday xildhibaan golaha shacabka ah yaasiin cabdulaahi maxamuud waxa uu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto ma tihid xildhibaan jufo hoose ma tihid waxaad tahay xildhibaan qaran allah kugu asturo waxaan u mahad celinaynaa madaxda qaranka ee kala duwan ee kasoo qayb gashay oo qiimaha badanoo gobolka banaadir iyo dowladdii sare golaheeri kala duwanay ah mahadaan uga celinaynaa sida qiirada leh uga soo qayb galeen annaguna mahadaan isu celinayna oo wiilkayni soo dhaweynay waxaan mahad gaara u celinaynaa boqor cabdulaahi geedi oo garab socday allah ku barakeeyo runtii magaalada muqdisho inta badan way og yihiin dadka degan howlkarnimadaada dadnimadaada deganaanshaha muqdisho waxaa u sababa aan dhihi karnaa allah subxaana wa tacaala laakiin alaa u sababa deganaanshaha muqdisho inay degan tahay waana kaaga mahad celinaynaa waana ku soo dhaweynaynaa xildhibaan soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaagii aad nabadda ka dhigtay waxa weeye gobolka banaadir waa kuu abaal naqeen waa laguu yimid waxaana lagugu yimid sida aad dalkan amnigiisa aad ooga shaqaysay waxaan rajaynayaa insha allah in ilaahay xilka lagu dhiibay uu kugu garab galo gabagabadii ayaa waxaa hadalka qaatay xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey waxa uuna u mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay soo dhoweyntiisa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii bahda miidiyaha iyo dhaqanka waxaan rabaa waxa laygu soo dhaweynaya waa xildhibaannimada ee muqdisho maaha waxaan rabaa marka inaan hadda wixii ka dambeeya waxaan ka shaqay doonaa oo magaalada muqdisho ee caasimadda iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan gaar ahaan dowlad goboleedka galmudug aan ka soo jeedno waxaan ugu shaqay doonaa si hufan ood og tihiin duruufaha ee dalka ku xeeran ergooyinka la qaadayo ee la geynayo gobollada dhammaan waxaan rajaynayaa anugu intaan ka warqabo waa galmudug sida loogu soo dhoweeyey murashaxiinta iyo ergadaba iyo qaabkay doorashadu u dhacday intaba waxaan leenahay waa mid hufan oo xalaal ah waxaan rajaynaynaa marka cid allaaleya ciddii doorashadaas qayb ka noqotay ay ugu horeeyaan murashaxiinta ila socotay meeshaanna aan ku kala dambeyno laakiin markii ugu dambeysaan isugu tagnay samareeb haddana annagoo isku faraxsan oo soo kala baxnay kursigana ewelba qofbaa ilaahay ugu talagalay ewelba 2 iyo 3 kuma fadhiiso lahayn waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo waxaan si gaar ugu mahad celinayaa boqorka iyo jenaraal gacmo dulle oo iyaguna qayb libaax leh ka qaatay hadday tahay odatinimo marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin 100% hadda wixii ka dambeeyana waa isla joogi doonaa waxaana samayn doonaa munaasabado aan isugu wada imaan doono cid allaaleya ciddii tabasho qabto hadday tahay kursigan aan aniga ku fadhiyo iyo hadday tahay kuraasta kaleba waxaan diyaar u nahay inaan kala fadhiisanno kalana hadalno cid allaaleya ciddii tabasho qabto maxamed cali weheliye universal TV magaalada muqdisho